khuruujka kale waxa looga jeedaa filaya qoladan tabliiqa la yiraahdo waxay sameeyaan horta maxaa loo baxayaa waa in la isweydiiyo dadka qaar ba waxay moodeen in magaalo laga tago oo magaalo kale la tago ama xaafad laga tago xaafad kale la tago inay tahay mashruuc oo maqsuud lidaati wax la sharciyeeyay diinta dhexdeeda oo sidiisa loo doonayo qofku safar uu gali karaa safar waxaad u gali kartaa inaad cilmi doonato oo rixla fi talab ilm wax mashruuca oo adiladu ay sheegtay quraan iyo sunnaba salafkeeni dadkeeni hore wanaagsanaana ay sameyn jireen waxaad u safri kartaa inaad dadka cilmi aad dheer tahay aad gaarsiiso oo aqoon aad dheer tahay dad inaad ula tagto oo aad u dhigto waxa weeyaan aad u sheegto laakiin qofku inuu iska socdo uun isagoo aan isna waxba aan kororsanayn aqoon cidna aan aqoon u kordhinahayn wax nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ka sugnaaday horta maba ahaba oo nabigeenu dad culimaa buu diray mucaad ibnu jabal buu yaman u diray muscab ibnu cumayr oo quraan yaqaan ah waa kii madiina u diray intuu maka joogay soo dadka quraanka u baro nabi maxamed oo calayhi salaatu wasalaam dad caamo iyagu diinta aan waxba ka garanahayn intuu u cumaamaday yiri ducaad baa tihiina orda oo dhaqaaqa taasi lama hayo dacwada lafteeduna waa cibaado rasuulka laga dayanaya lamaanaha iyo suura sheekh al-albani rahimahullah rasuulka oo caalim ama dad culimo ah iyo caamo israaciyi orda oo dacwada soo wada faafiya taasina iyaduna ma jirto dadka caamada diinta aan aqoon u lahayn waajibkoodu waa inay diinta bartaan laakiin inay u cumaamataan inay yidhahdaan anigu ducaad baanoo diin fidiyaal baanu nahay maxay fidin garanba maayaane faaqidu shay laa yucطiihi qofku waxaanu hayn ma bixin karo wixii qofka muslimka intaa muslimiinta uu dhex joogo uu arko uu yaqaano inuu yahay wax sharci khilaafsan cidda samaynaysa waa ilaahay ka boqdo iska dayo odhan kara wixii laga tegay waajibe uu arko waa odhan karaa war waajibkaa sameeya laakiin inuu idhaa daaci baan noqonayaayo dacwad baan anigu u wareegaya dee dacwaddu shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah alcilmu bima yadcuu ileyh dadka wuxuu ugu yeedhay qofku inuu yaqaan haddii kalena waxa weeyaan dee wuxuu kharibayaabaa ka badnaanaya waxa uu hagaajinayo arrinta la yidhaahdo qofku intuu garanayo unbuu sheegayaana wax saxa maaha oo qof la yidhi daaci baad tahay oo halkaas soo istaagay oo afka kala qaaday oo la yidhi dadkii wacdi ama muxaadaro u gal waxa weeyaan wuu hadlayaayo mar haddaanu shareecada aqoon u lahayn xadiis mawduuc oo beena ayuu sheegayaa masaa'il aanu garanahayn buu ka hadlayaa caqiidadii saxdeed wax khilaafsan buu ku dhawaaqayaa marka arrin saxa maaha taas dumarka aanu nimaadno in dumarka dacwad loo saaro la yidhaahdo ama maxrama la socdo ama yaan la socone dumar baa u baxaaya dacwad faafin horta mas-uuliyadda dacwad faafinta guud ahaan ilaahay ragga ayuu saaray wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayh nebi dumara ilaahay mar lama soo dirin soo moogdin dumarkuna de weligood baa adduunyada way joogeenoo lama odhan dumarka laftooda nebiyad u baahan ee heblaayaha loo diro nebi waxa weyan ha u noqotay waa hawl culus oo aanay qaadi karin nabigeena calayhi salaatu wasalaam dumar saxaabiyaada waxa weyan inuu saaray oo mastuuraad iyo magac noocaasa intuu u bixiyey iyadana wax soo arooray maha dumarka had iyo jeeraale la wado ee la yidhaahdo waa daaciyaad waa mastuuraadna dad iskaba islaamo iska culus iyo dad aan diintii waxba aan ka garanahayn iyo waktigoodu laga lumiye halkii iyaga la odhan lahaa diinta barta oo salaada iska saxa oo waxa weeyaan qur-aankii barta waktigun baa laga lumiyo waa la lugooyey culimaduna saan u sheegaya u sheegano hadal anigu aan bilaabay maahe culimadii waaweyneeda casrigan su-aasha lafteeda markii la weydiiyey sida sheekhii albani iyo xadiidka cilmiga xadiidka u yaqaanay casrigan iyo sheekhii kale caqiidada iyo fiqiga ragga u yaqaano kamid ahaa casrigan aynu soo gaadhnay ibn cuthaymiin labaduba waxay ku jawaabeen dumarkaa la abaabulaye la odhanayo daaciyaad baa tihiin oo khuruuj baad u baxaysaan inay tahay wax bidco ah oo rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii wanaagsanaa
quruuntii nebigu ammaanay uhi khayru naasi qarnii wax laga soo gaadhay maaha gabadhu hadday cilmi leedahay gurigeeda ugu dhigi kartaa waxa weeyaan dumarkii qur-aankii xadiidkii caqiidadii haddii ay meel ay isugu yimaadaan ay ugu tagto cilmiga ugu dhigto taas saxaabiyaadka waa laga haya caaisha radi allahu canha waana fatwoon jirtay cilmi badan oo xadiidka ku saabsanna dee waa laga wariyo rag bay dee u akhridayoo waxa weeyaan ka qaatay laakiin wixii taa ka baxsane qaabkan hadda ay u socoto qaab shareecada kusoo arooray maaha wallahu aclam بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء